السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan si walba aad noo daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ah oo alaabaan idinkugu soo gudbin jirnay xisaabaadka ee walaalaha Soomaaliyeed ku soo sadaqaystaan Maxamed Soomaali isla markaasina aan xaaladiisa caafimaad idinkugu soo gudbin jirnay maxamed Soomaali sidaad ka warhaysaan daawadayaal xaaladiisa caafimaad way ka soo reynaysaa wuxuuna dhawaan maray qaliinkii koowaad oo lagu saarayay maqaarka waxaana u dhiman qaliimo kale ama qaliinkii ugu weynaa ee lugta lagu jabinayay isla markaasina lagu toosinayay waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal inaad soo caawisaan Maxamed Soomaali waxaan rabaa hadduu alle idmin idiin soo gudbiyo walaalaha Soomaaliyeed lacagaha ay ku soo sadaqaysteen Maxamed Soomaali waxaan ku hormarayaa xawaalada Tawakkal lacagaha walaalaha Soomaaliyeed ay soo dhigeen qofka ugu horeeya waa Safiya Sheekh Xaamud waxa ay ku nooshahay Mareykanka waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 Naciimo Haagi waa Naciimo Haagi waxa ay ku nooshahay Mareykanka waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 Bishaaro Xaaji Cali waxa ay ku nooshahay Mareykanka waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $30 xawaalada Bakal Express walaalaha lacagaha soo dhigay qofka ugu horeeya waa Cabduqaadir Muuse Samatar waxa uu ku nool yahay London UK wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $100 xawaalada Juba Express walaalaha lacagaha ku soo sadaqaystay ee soo dhigay qofka ugu horeeya waa Shukri Gaabo Yusuf waxa ay ku nooshahay South Africa waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 Mahdi Nuur Maxamed waxa uu ku nool yahay UK London wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $50 Cabduwali Cabduqaadir Sheekh waxa uu ku nool yahay South Africa wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $50 Naciimo Cumar Axmed waxa ay ku nooshahay Sweden waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 Maxamed Deeq Maxamuud Cabdi waxa uu ku nool yahay South Sudan wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $50 Cismaan Maxamed Xalane waxa uu ku nool yahay South Africa wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $100 Guuleed Maxamuud waxa uu ku nool yahay Canada wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $100 xawaalada Hodan Global waa xawaalada Hodan Global walaalaha lacagaha soo dhigay qofka ugu horeeya waa Roode Axmed Diini waxa ay ku nooshahay China waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 waa Roode Axmed Diini oo ku nool China waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 Maxamed Cali Fadow waa Maxamed Cali Fadow waxa uu ku nool yahay Mareykanka wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $100 Axmed walaalaha Soomaaliyeed ee xawaaladaha lacagahan soo dhigay maxaad ugu duceyn lahayd جزاك الله خير إلهي أجري حسنات الله إذن كسيو أنتي سو عاوسي أنتي نغفر حسي إلهي وحاني كبرينا إذا كانوا حقوا فرحضان إنه إلهي إذن سيو بإذن الله كريم إن شاء الله وإذن سو دعينا يويل كي سيداد ما تفرحد إسيسن سيكدرنا الله إذن كفرحيو إلهي ودكين الله إذن ديستو إلهينا إذن بركي جزاك الله خير waa tahay daawadayaal allaha idin aqbalo ducada aabe Axmed Jeylaani oo aabaha dhalay dhibane Maxamed Soomaali waxaan gudagaleynaa xawaaladaha kale walaalaha lacagaha ku soo diray xawaalada Ka Express qofka ugu horeeya waa Nasro Xasan Jaamac waxa ay ku nooshahay Mareykanka Minnesota waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 qofka kale oo xiga waa Sulayqa Nuur waxa ay ku nooshahay Mareykanka waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 qofka kale xiga waxa uu noqonayaa daawadayaal wali waxaynu ku guda jirnaa lacagii walaalaha Soomaaliyeed ay soo dhigeen xawaalada Ka waa Caasha Maxamed Faarax waxa ay ku nooshahay Stockholm Sweden waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 waxaan hadda soo guda galeynaa walaalaha lacagta soo dhigay xawaalada Dahabshiil qofka ugu horeeya waxa uu noqonayaa Farxiya Maxamuud Xasan Cali waxa ay ku nooshahay Norway waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 Farxaan Cabdullaahi Xuseen waa Farxaan Cabdullaahi Xuseen waxa uu ku nool yahay UK wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $50 qofka kale waxa uu noqonayaa Najma Aways Maxamed waxa ay ku nooshahay Hargeysa Somaliland waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 qofka kale waxa uu noqonayaa daawadayaal waa Cusmaan Nuur Maxamed waxa uu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $150 waxa uuna ku nool yahay UK qofka kale waxa uu noqonayaa daawadayaal waa Farxiya Kaahin waxa ay ku nooshahay UK waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 qofka kale waxa uu noqonayaa daawadayaal
waa cabdirasaaq maxamed cabdi waxa uu ku nool yahay Norway wuxuu maxamed Soomaali kusoo sadaqaystay $50. qofka kale ugu dambeeya ee xawaalada dahabshiil lacagahan soo dhigay waxa uu noqonayaa Ismahaan Cali Sheekdoon waa Ismahaan Cali Sheekdoon waxay kusoo sadaqaysatay maxamed Soomaali $100 waxa ayna ku nooshahay UK. walaalaha Soomaaliyeed ee lacagaha soo dhigay xawaalada dahabshiil iyo xawaalada kaah maxaad ugu ducey lahayd? jazakallah ilaahay idin barakeeyo ilaahay ajri xasanaad allah idinka siiyo intii isoo caawisay intii naga farxisay ilaahay waxaan idinka baryaynaa idinkana waxaad ku faraxdaan inuu ilaahay idin siiyo biidnillaahi kariim insha allah aniga mar walba waan soo duceynaynaa ducada kaliya ma ahan afka inay kasoo baxdo mar walba waxaan idinka duceynaya qalbiga iyo caloosha ilaahay idin barakeeyo ilaahay ubadka allah noo deesto insha allah biidnillaahi kariim qof walba maxamed igu soo caawiyey oo maarta soo garab istaagay ilaahay waxaan ka baryayaa wuxuu ku farxo inuu ilaahay siiyo insha allah. allah ha idin aqbalo ducada aabe axmed jaylaani oo ah aabaha dhalay maxamed axmed jaylaani maxamed nuur oo loo yaqaano maxamed Soomaali oo muddo ku xanuunsanaa Malaysia horeyna ugu xanuunsanaa ama dhaawac uga soo gaaray Soomaaliya. waxaan ilaah uga baryaynaa asagana inuu caafimaad degdeg ah siiyo adinkana sadaqada aad baxsateen ilaahay inuu idin aqbalo ayaanu rajaynaynaa insha Allah tacaala. xawaalada taaj walaalaha lacagaha soo dhigay qofka ugu horeeya waa Caday cabdi maalin waxa ay ku nooshahay UK waxay maxamed Soomaali kusoo sadaqaysatay $500 sorry naga raali ahaada waa Caday cabdi maalin oo $500 kusoo sadaqaysatay maxamed Soomaali waxa ayna ku nooshahay UK. qofka kale waxa uu noqonayaa Canab Daahir Sheekdoon waxa ay ku nooshahay Mozambique waxay maxamed Soomaali kusoo sadaqaysatay $100. qofka kale waxa uu noqonayaa daawadayaal Xabiibo Axmed Maxamed waxa ay ku nooshahay Finland waxay maxamed Soomaali kusoo sadaqaysatay $400. qofka kale waa Maxamed Cabdalla Qarbud waxa uu ku nool yahay Norway wuxuu maxamed Soomaali kusoo sadaqaystay $60. walaalahan xawaalada taaj lacagaha soo dhigay maxaad ugu duceeyay adigoo soo koobaya? jazakallah walaalay waxaan leeyahay allah idin barakeeyo ilaahay maarid sadaqadaad soo sadaqaysteen ka bedelkiisa allah idin siiyo ilaahay waxaan idinka baryayaa idinkana sidaad noo farxiseen si ka daran inuu ilaahay idinka farxiyo biidnillaahi kariim qof walba oo muraad leeyahay oo maaragtay maanta uu rajaynayo inuu adduunka wax ka damacsan yahay ilaahay waxaan kaga baryaynaa muraadka uu leeyahay inuu ilaahay u sahlo inuu ilaahay ubadkeena noo deesto inuu ilaahay noo barbaariyo kuwii oo dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda anfacay inuu ilaahay noogu dhigo insha allah mar walbana waa idin soo duceynaynaa ilaahayna noo aqbala ducadaan idin soo duceynayno idinkana jazaakallah mar walbana waxaan idin leeyahay ilaahay maaragtay allah maaragtay meel aad ka filnayna inuu ilaahay idinka siiyo insha allah. waa tahay allaha idin aqbalo sidoo kale ducada aabe axmed jaylaani oo ah aabaha dhalay dhibane maxamed Soomaali. daawadayaal lacagihii aanu shalay iyo maanta soo aruurinay ee xawaaladaha kala duwan sida Jubba Hodan Express Tawakal xawaalada dahabshiil kaah iyo xawaalada Taj Express aynu kasoo qaadnay intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa lacagii aan soo aruurinay daawadayaal waa lacag aan kasoo aruurinay xawaaladaha kala duwan ee ku yaala wadanka Malaysia isla markaasina ay kusoo sadaqaysteen walaalaha Soomaaliyeed. waxaan jecelahay inaan guddoonsiiyo aabe axmed jaylaani oo horeyba gacantiisa uga soo qaatay xawaaladaha iminkana aad aragtaan inuu gacantiisa ku haysto axmed jaylaani maxaad ummadda Soomaaliyeed u sheegi lahayd dareenkaaga maantana muxuu yahay inaad lacagtii maanta insha Allah soo aruurin aad heysana bal ummadda u sheeg insha Allah. maasha allah walaalkay azariyo khayr allah ku siiyo runtii aad iyo aad maartay ila shaqeysay oo garabkii ilaahay hadirtaan aad u taagan tahay ilaahayna waxaan kaaga baryayaa axmedow adigina ilaahay ajri xasanaad aan ku kina allah ka siiyo ilaahay adina waxa ku farxday allah ku tusiyo. waxaa kaloo jirto walaalay Soomaaliyeed maanta murugtaan ku noolaa iyo maanta isbedelkay wajiga ka muuqda farxadda runtii wax la soo koobi kara maahan ilaahay adin barakeeyo waayo muddaan soo dhibtooday muddaan soo ooyay maantana waa dareemi karaa isbuuc gudihiis farxadda yani maanta soo wajahday ama si walaalay Soomaali garabkayga u taagiin ilaahay idinkan waxaan idinka baryaa waxaad ku faraxdaan aad ku nidaadaan inuu ilaahay idin siiyo insha Allah. wiilka maanta kalsooni Soomaaliyeed ayuu u jiifaa isbitaalka taasina aad iyo aad aan u faraxsanahay waayo waa dareemi karaa ama hooyo walbo ama aabbo walbo uu dareemi karaa oodka yani macaantay leeyihiin markay xanuunsiin yani maarta xanuunkay leeyihiin dabcan yani qof walbo ood ilaahay sii uu dareemi karaa oodka insha Allah. jazakallah mar walbana waa idin soo duceynaynaa
bal korna liga heeyo liga warheeyo yacni xaaladda maxamedna halila socdo ilaahay idin barakeeyo insha allah mar walba duco waxaan idin hayno allah idin aqbal insha allah waa tahay adiguna aad ayaad ugu mahadsan tahay sida quruxda badan ee walaalaha soomaaliyeed ugu duceysay ducadaadana allaha noo aqbalo ducada walaalaha soomaaliyeedna allaha adigana ku aqbalo daawadayaal aaba axmed jeelaani moralkiisa dib ayaad usoo celiseen waxaadna gacan ku siiseen in noloshiisii ay dib usoo laabato qof walba oo gacan ka geystana waxaan u rajeyneynaa farxadda oo maanta aaba axmed jeelaani a siisay farxad ka badan ilaahay inuu ku siiyo adiguna insha allahu tacaala waxaan idinka filaynaa inaynu ka caajisin oo aynu ka habsaamin sadaqada aanu kusoo sadaqaysanayno walaalkeen axmed jeelaani wiilkiisa maxamed soomaali oo weli isbitaalka ku jira waxaan idinka codsanaynaa inaad mar walba soo garab istaagtaan oo aad macnaa taageero mid afeyd iyo mid hantiyeedba aad macnaa dee ku sadaqaysataan dhibane maxamed soomaali oo gacan ka xaq daran ay baawur marsiisay islamarkaasina muddo fara badan ku dhibaatoonayay wadamada kala duwan sida soomaaliya iyo wadankan malaysia daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad mar walba garab istaagtaan dhibane maxamed soomaali wax walbo aad awoodi sadaqadu yaraan ma leh kusoo sadaqayso waxaana kala soo xiriiri kartaa lambarada shaashada aad ku arkaysaan waxaana wata lambaradaasi aaba axmed jeelaani oo dhinacayga bidix fadhiya daawadayaal intaas aynu kusoo gabangabeyneynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu ku eegeynay islamarkaasina aynu kusoo bandhigeynay lacagihii walaalaha soomaalida ee kusoo sadaqaysteen maxamed soomaali shalay iyo maanta islamarkaasina aynu kusoo bandhigeynay xaalada guud ee dhibane maxamed soomaali intaynu barnaamijkan oo kale dib hawada u kulmi doono waa aniga iyo aaba axmed jeelaani oo isku duuban oo idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo